السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaashana qiimaha badan ee inagu xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Haddaad ku cusubtahay daawade inagu soo biir adigoo taawanaya calaamada subscribe kadibna furo gambaleelka si ay ku soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyo kanaalka. Ana ka ilmaamin muuqaalka inaad like gareysid maasanid. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo gudbin doonaa insha Allah shakhsiyad cajiib ah kuwaas oo aad adigu la yaabi doonto. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. asna Mohamed Maslamani bariga dalka Lubnaan waxaa ka soo baxday gabadhani oo ah mucjiso iyo la yaab taas oo ay dadka la yaabeen sida caadiga ah haddii aynu nahay bini aadam waxaynu ooynaa ilin dareera ah laakiin hasna waxa indheeda ka soo baxo yacni ay ooysaa maalin walba 10 dhagax oo birbirqo waxayna u sheegtay arrinka mucjisada ah aabaheeda waxa uu geeyay isbitaalka waxaana qaabilay doctor magaciisa la yiraahdo Dr. Ahmed Raji wuxuu baaritaan u bilaabay xaaladeeda kadib waxa uu ka soo saaray 3 dhagaxaan oo birbirqayso دكتوركي با معجزدي لا yaabay oo yiri cajaa'ib gacan baan ka taagtay mucjisada Xasna دكتوركي ba aabi kula taliyay inuu Xasna guriga geeyo waxa uuna u sheegay in xaaladan ay tahay mid dabiibayaashu aysan waxba ka qaban karin oo mucjiso rabbaani ay tahay Xasna gurigeedii baa la geeyay kadibna waxa ka soo baxay dhagaxin qiyaastooda ay tahay 7 ilaa 8 oo rabbi quwadii dhagaxantan waxba uma geystaan araga indhaheeda Admuhan Neer waa nin ka soo jeeda dalka India asuu Ilaahay u hibeeyay in jirkiisu uu leeyahay electric ama danab ninkan asaa ah danab jarjiskiisa wato hadduu uu korkiisa ku taabto fiilo waxa meeshaas ka dhalad koronto ninkan asagaab ah danab socdo gurigiina uma baahna koronto kale oo jirkii waxa ku jiro danab badan xitaa lagu karsan karo cunnada nalalkana loogu shidan karo iyo wixii la mid ah inkan waxa la yaabeen doctorada scientistayaasha xitaa waxa la yaabeen khubarada danabka waxaynu dhahayn niyahow weynu ku baaraynaa waxaynu rabnaa inaynu wax ka ogaano xaaladan cajiibka ah ka bacdi khubarada waxay soo ogaadeen in ninkan jirkiisu uu ku badan yahay electricna uu ka mid yahay difaaca jirkiisa waxa hubaal ah in korontadu ay aadamuhu dili karto xadidan 10% ampere Gary Turner ninkan sidoo kale wuxuu cajiib ku yahay in maqaarkii uu u jiidi karo sida laastiga oo kale 29kii bishii Oktoobar sanadka markuu ahaa 1999kii Guinness World Recordkii dhacay markaas waxa uu ku guuleystay in jirkiis uu jiidi karo dherer gaarayo 6.25 inches Gary Turner waa nin maqaar dabacsan leh oo dhankuu doono buu u jiidi karaa Maeve Ascap inkan waa fiiryahan aan caadi ahayn xirfadii dhanka fiirka waa mid aad soo jiidasho u leh waa nin awood iyo jir weyn uu Ilaahay ku manaystay waxa kamid ah awoodaha uu Ilaahay siiyay inuu jiidi karo gaari waliba asigoo kaliis ah yacni qof lama jiidayo kaliis ayaa jiiday gaariga waxa uu ku jiidayaa madaxiisa waxa tan u saamaxaysa qoortiisu aad u weyn oo leh awood qoortiisa jimicsi waa lagu sameyn karaa qoortii markii la cabiray balaceeda wuxuu noqday 18.9 inches Tram Van Hey ninkan waxa uu balan qaaday in uu tintiisa jari doonin tintiisa ma jaro aadna ay u badan tahay cabirka tintiis waxa ay gaaraysaa 22 feet iyo bar oo ah dhererka tintiisa leeska tintiisa waa ay ka daran tahay waxayna gaaraysaa 23 pounds taas oo u dhiganto 10 kilogram Stephen Wiltshire inkan waxa uu qaba cudurka kaliinoolaashaha ah waxa uu helicopter ku maray magaalada New York uu wada sawiray asigoo hal meel ka tagin yacni New York gabiyeed buu wada sawiray
Michel Lotito waa nin u dhashay dalka French. ninkan caadi ma aha, waa cajiib. Michel waxa uu cunto ahaan u cunaa birarka gobolka iyo nalalka yariiska ah. waxa uu ku kabadaa birarka biyo. waxa uu bilaabay mucjisadan ah bir cunida asigoo jir 9 sano. waxa uu cunaa biraha maalin walba sida anaga aynu u cunno cuntada. waxa hubaal ah hadduu qof laqo bir haba ahaatee jabal, waxa uu gali karaa halis caafimaad taas oo sababi karto inuu qofka geeriyoodo. Yo Yombing waa nin Chinese ah. isaga cajaa'ibtii waxa ay tahay in uu awood u leeyahay sankiis inuu ku aariyeen karo kamaldaariga ama cagta gaariga. waa cajaa'ib ninkan loo yaqaano Yo Yombing. badbaadada inala wada qaybta hoose ee faalooyinka shakhsiga adiga kula cajiib ahaa. hana ka hilmaamin muuqaalka inaad like saartid wana la sii wadaagtid asxaabtaada. waxaa mar labaad xasuusinayaa asxaabta inagu soo biirin inay inagu soo biito oo ay kanaalka ii rukuntaan. waad mahadsantihiin dhammaantiin daawadayaasheena qiimaha badan ee inala soo gaaray barnaamijka muuqaalkana maanta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.